قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galaan miidiya qodobada ku daawad doontaan waxa ugu dooran ciidamada taabacsan Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo duleedka Muqdisho dhooban dib u dhac ku yimid xafladii caleemasaarka madaxweyne Ahmed Madoobe madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in masiirka dalka aan lagu aamini karin dawladda hadda jirta isagoo sheegay in farmaajo hayo wadadii siyaad barre xildhibaan Axmed Macalin Fiqo weerarka ku qaaday madaxweyne farmaajo amniga Muqdisho isbedel lagu sameeyay xisbiga damo jadiid oo ka cabsi qabay inuu lacag ku bixiyo doorashada galmudug warka dibadda daawadayaal waxa kamid ah Itoobiya oo xirxirtay mar kale xubno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin shabaab iyo Daacish xagaag haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka taariikhdu waxay tahay 24 bisha 9 Sebtembar 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. ciidamo ku heeb ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo ka soo ambabaxay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa lagu celiyay duleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho ciidankan ayaa laga hor istaagay inay gudaha u soo galaan magaalada Muqdisho xilli la ogaaday inay xambaarsan yihiin diilo colaadeed oo ay ka qaadeen xayiraadii maalin ka hor la saaray madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Ahmed sida aan wararka ku helnay ciidankan oo aad u hubeysan watana gaadiidka dagaalka ayaa doonayay inay Sheekh Shariif xoog ku geeliyaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho si ugu sii ambabaxa magaalada Kismaayo oo maalin ka hor laga celiyay in uu halkaasi gaaro odayaal dhaqan iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka kana soo jeeda beesha Abgaal ayaa ku baxay ciidankan isla markaana u sheegay in arrintan xal siyaasadeed oo nabdoon laga gaarayo isla markaana dib ugu laabtaan fadhiisimahoodii ay ka soo baxeen dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maalin ka hor hogaamiyaha xisbiga himilo qaran ahna madaxweynihii hore ee ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Ahmed safar uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo ka biyadiiday iyagoo walaac ka qaba in Sheekh Shariif marka uu gaaro Kismaayo uu ka qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo dawladda uu khilaaf kala dhaxeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa eedeyn u soo jeediyay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan hogaamiye mid ka mid ah xisbiyada dalka ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay maamulidda hawada dalka iyo federaalka dalka Xasan Sheekh ayaa sheegay in maamulidda hawada dalkeena sanado badan dadaal lagu galay sidii gacanta Soomaaliyeed lagu soo celin lahaa balse aysan mudnayn in shacabka Soomaaliyeed loo adeegsado in lagu cunaqabateeyo maamulidda hawada Xasan Sheekh oo ka hadlay arrimaha ka jira magaalada Kismaayo ayaa ku tilmaamay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku tilmaamay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre in ay baal mareen guud ahaan shuruucda dalka sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shacabka ku nool Muqdisho in noloshu ay ku adkaatay isagoo tusaale u soo qaatay wadooyinka xiran waa la garanayaa baarlamaanka federaalka guddoonkiisa la bedelay wixii ka dhacay baydhabo wixii ka dhacay galmudug waxa ka socdo Kismaayo wixii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dadka ku nool caasimada Jamhuuriyadda sida ay u taal dadku inay noolaayeen dulqaadka dadka Muqdisho ayaa dawladdan ku jirta dulqaadka iyo dawlad jacaylka ay qabaan dadka Muqdisho la hoggaanka waxaan leeyahay dadka yaan laga dabageynin horena waa u dhahnay markalna waa ku celinaynaa dadka maragga laga daayo والرجع حماد ودان رجع حماد الجوجية وددا أتكون جوكتان ودا صح معها إلى عليه دتك هنا الله طور دل كان ضوء حماد مالكلو الآدم ما قانون كبدش ورنيك مالكلو الآدم هو دل كان نوع عيار ملايين الصوماليين دل كان جوكتان مالكلا ما قبان هذا يروح دان مالكلا قبت هذه كجرتاي
laakiin dalkan iyo deegaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaarin karaam xumo iyo sharaf xumo iyo taariikh xumo adnayaanay ka raacin oo weligeed aan ka hari doonin dadka Soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabadda ilaalinta nabadda dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya ha sii muujiyeen laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen lama aamusi karo lamana caburi karo dadku qaanuun la'aan in lagu dhaqmayaan la yeelin warar soo baxaya ayaa sheegaya in dib u dhac ku yimid caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe munaasabada caleemasaarka Axmed Madoobe ayaa lagu waday in 26 bishaan lagu qabto magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah Jubbaland guddigii loo xil saaray qabanqaabada xafladaas ayaa waxaa la sheegay in ay dib u dhigeen xilliga xafladda ay dhacayso inkastoo aan weli si rasmi ah loo shaacin dib u dhaca xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe xog aan helnay ayaa sheegaysa in guddiga uu dib u dhigay loona astiyay bishan soo aadan dowladda Soomaaliya ayaa xayiraad shalay dheeri ah ku soo rogtay dhanka hawada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd xayiraad dhanka hawada ah markale ku soo rogtay diyaaradaha aadaya ama ka imaanaya Kismaayo iyadoo sheegtay in muddo 3 maalmood ah aysan wax diyaarad ah ka degi karin magaalada Kismaayo xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa ka digay waxa uu ugu yeeray halista ka imaan karta kaligii talisnimada uu bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo lagu arkayay calaamado kaligii talisnimo ayaa maalin ka hor si bareer ah banaanka u keenay kadib markii uu xayiraad socdaal saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed sabab la xiriira kaliya inuu ka aragti duwan yahay Fiqi ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook-giisa ku yiri kaligii taliska socod baradka ah waxa uu ku socod bartaa ku tumashada shuruucda dalkiisa caburinta iyo cadaadiska dadkiisa wuxuuna ku qaangaaraa daadinta dhiigga dadkiisa wuxuuna ku gaboobaa burburinta iyo kala qaybinta dadkiisa Fiqi waxa uu ka digay halista Farmaajo ka soo socota xilli uu waqtigiisa ka sii dhamaan rabo wuxuuna tusmeeyay waxyaabaha laga filan karo inta uu cusub yahay shaatiga wadaniyada ayuu adeegsadaa hantida iyo ciidamada qarankeena ummadda ayuu u isticmaalaa marka uu sii dhacayana waxa uu ku dhacay marka uu sii dhacayana wuxuu u dhacay oo hanti ah iyo qabiil ayaa garab u noqda ayuu yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi kana mid ah xildhibaanada mucaaradka ah aadka uga soo horjeeda dowladda hogaamiye Farmaajo wuxuu intaas ku daray Axmed Macalin Fiqi waxaa la joogaa waqtigii ummadda Soomaaliyeed si dhab ah iskaga wareysan lahayd dictatorka sanqaadka xun ee dastuurkii iyo shuruucdii uu madaxda ka ahaa isaga ku tumanaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka cabsi qaba in xisbigiisa uu lacag ku bixiyo doorashada Galmudug oo u diyaar garoobaysa inay doorato madaxweynihii labaad ayaa waxaa ka furmay loolan adag oo la aaminsan yahay in natiijada ka soo baxda ay go'aamin doonto rajada mucaaradka ee doorashada 2020 waxaana si rasmi ah u bilowday ololaha doorashada iyadoo musharaxiinta ugu cadcad ay ku dhawaaqeen doonistooda dowladda mucaaradka dowladda ayaa ku duulaya 2 musharax oo kala ah Cabdiraxmaan Odowaa iyo Kamaal Kuutaali halka muxaafadkana ay riixayaan Axmed Qorqor waxa intaas dheer musharaxiin siyaasad qabow oo tartanka qayb ka ah kuwaas oo aan la saadaalin karin dhinaca ay u dhamaan doonaan musharax Cabdiraxmaan Odowaa oo Muqdisho kaga dhawaaqay rabitaankiisa ayaa tagay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug si wanaagsan loogu soo dhaweeyay balse isaga ee saaxiibadiisa siyaasadda oo ay ku abtirsadaan xisbiga UPD ayaa safar saxaafadda laga qariyay ugu soo laabtay Muqdisho iyadoo qaarkood ay u sii gudbeen Turkiga laakiin Odowaa oo aan warbaahinta ka soo muuqan ayaa la rumaysan yahay inuu Muqdisho joogo wali waxaa jiro xogo hoose oo sheegayo in saaxiibadii ay niyad jabeen kalsoonida ah in ay reer Galmudug ka iibiyaan aragtidooda iyo in madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga Xasan Maxamuud oo si cad u sheegay in doorashada Galmudug uusan wax lacag ku bixi karin taas oo ay dheer tahay in xildhibaan Mahad Salaad oo wada hadal la furay musharax Qorqor isaga oo quul dareenaya inuu ku biiro ololihiisa haddii sidan ay wax u sii socdaan waxay u muuqataa in musharax Odowaa uu lumin doono taageerayaashiisa oo ku biirin doono garabyada
kale ee xifaaltanka ku jira. haddii sidan ay wax u sii socdaan waxay u muuqataa in musharax Odawa uu lumin doono taageerayaashiisa oo ay ku biiri doonaan garabyada kale ee xifaaltanka ku jira. Kamaal Guutaale oo isna musharax aan la dhayalsan karin oo mucaarad ah ayaa Muqdisho uga dhawaaqay musharaxnimadiisa wuxuuna u gudbay Dhuusamareeb. munaasabadiisa shaacinta iyo soo dhaweynta tegistiisa Dhuusamareeb kuma uusan soo bandhigin garabyo culus oo saameyn ku leh siyaasadda maanta, laakiin waxa uu ku dhiiran yahay in uu sii wato ololihiisa. xisbiga uu ka tirsan yahay ee Wadajir, saraakiil ka tirsan ayaa laga soo xigtay in lacag iyo maskaxaba ay la garab taagan yihiin musharaxooda oo aysan wax cabsi ah ka qabin, laakiin dad badan ayaa u arkay in saaxiibadiis ay saameyn badan ku lahayn siyaasadda, gaar ahaan dowladda iyo tii ka horreysayba. musharaxa saddexaad waa kan aadka loo hadalhayo oo loo badinayo inuu noqon doono madaxweynaha soo socda ee Galmudug, Axmed Kaariyo Qorqoor, oo taageero badan ka haysta dowladda iyo dad siyaasadda saaxiibo ay ku noqdeen. Qorqoor oo Muqdisho ku soo bandhigay dhoolatus indhaha soo jiitay, sidoo kale noqday musharaxa ugu ololaha xoogantan iyo markii uu ku dhawaaqay hankiisa. siyaasiyiin saameyn xoog leh, ganacsato ay soo wada shaqeeyeen, odayaal dhaqameed iyo qaybaha kale oo bulshada Galmudug ka tirsan ayaa si isku mid ah u riixaya qorshaha uu ku maamuli lahaa Galmudug 4 sano ee soo aadan. haddii dhinacyada mucaaradka aysan wax ka bedelin siyaasadda ay ku wajihiin ololaha doorashada oo aysan la imaan hab u sahli kara in ay tartan adag geli karaan, waxay u muuqataa ciyaar natiijada la ogyahay. dowladda Itoobiya ayaa xirtay dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda xagjirka ee Al-Shabaab iyo Daacish oo la sheegay inay qorsheynayeen weeraro argagixiso. waaxda sirdoonka Itoobiya ee magaceedu loo soo gaabiyay NSS ayaa shaaciyay in xubnaha la qabtay ay qorsheynayeen weeraro lagu qaado goobaha la iskugu yimaado ee lagu dhigo ciidaha diiniga ah iyo goobaha dadweynaha ku badan yihiin. sirdoonka Itoobiya ma sheegin tirada dadka mar kale la qabtay, laakiin waxay tilmaameen in lagu xiray magaalada Addis Ababa, deegaanka Oromada iyo dhulka Soomaali Itoobiya. sirdoonka Itoobiya ayaa sidoo kale tilmaamay in Djibouti kala shaqeynayso sidii loo soo xiri lahaa hogaamiyaha kooxdan oo la tuhunsan yahay inuu ku sugan yahay dalka Djibouti. kooxda isku magacaawday khilaafada Islaamka ee Daacish ayaa muuqaal ay horey u baahisay ku sheegeen inay qorsheynayaan in ay u wareegaan dhinaca dalka Itoobiya. dadka falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika ayaa arrintan ku sheegay in kooxdan rabto inay ka faa'iideysato khilaafyada dhex yaala qoomiyadaha Itoobiya. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelka Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.